kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu weyn Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waa kuwa labada dal ee caalamka islaamka ee heer kasta horumarka ka gaaray cilaaqaadka ay leeyihiin isla markaana ugu baaqay dalal kale caalamka inay ku daydaan gaar ahaan dalalka caalamka islaamka iyo taariikh weyn oo ka sheekeeyeen Hong Kong waxay ku dhawaaqday in qofkii ugu horeeyay ee ka daweysay xanuunka koronada ayadoo sheegtay inay dawada ay kaga daweysay ay tahay tan AIDS-ka looga hortago qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ninkii ku kaliyeystay inuu soo daabaco isla markaana qoro heshiiska qarniga loogu tilmaamay ee la doonayo dhulka Falastiin in lagu qaato ayaa isaguna waxa uu sheegay in Israa'iil aysan ku khasbanaan doonin inay aqbasho wax la yiraahdo Falastiin dal la yiraahdo Falastiin haddii aysan Falastiin ay u aqbalin qorshaha qarniga sidoo kale midowga Yurub ayaa markii ugu horeysay si cad u cadeeyay booskooda siyaasadeed ay ka taagan yihiin qadiyadda heshiiska Trump iyo wiilka uu sida uu yahay soo qoreen iyagoo markaas cadeeyay waxa ay halka ay markaas taagan yihiin qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan waa 3 bishii 2020 waa maalmo Isniina waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaal aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysay iyadoo wali ay baxadagayso wada hadallada ay leeyihiin Taliban iyo Mareykanka ee magaalada Doha ka soconaya ayaa ninka Mareykanka u qaabilsan wada hadalladaasi Salmaan Khaliilzaad ayaa waxa uu gaaray magaalada xarunta u ah dalka Afghanistan ee Kabul isagoo la kulmay madaxweyne Ashraf Ghani iyo madaxa guud ee maamulka fulinta dalkaasi Abdallah hadal uu ka jeediyay magaaladaasi ayagu waxa uu sheegay inaan wali la gaadhin wada hadallo lagu gorfay inkastoo la gaaray ayuu gorfayn aad u wanaagsan oo wada hadallada haddana inaan wali la saxiixin ayuu heshiis isagoo ka muujiyay rajo fiican in ay dhici doonto in dhawaan ay dhinacyada Taliban iyo Mareykanka ay kala saxdaan colaad yareyn wax lagu sifeeyay ama erebixin cusub oo loo isticmaalay taasoo ay daba socoto xabad joojin rasmi ah Salmaan Khaliilzaad ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Ashraf Ghani in ay jirto wuxuu ku sifeeyay horumar weyn oo dhinaca wada hadallada ee Taliban iyo Mareykanka ay subiyeen laakiin wuxuu sheegay in ay wali aysan jirin wax la saxiixay goorsii horeysay toddobaadkan ee Hurfar Media waxa ay ogaatay inay jireen warar qeexaya in shirarka ka dhacay magaalooyinka Doha, Brussels, Islamabad ay soo hadal qaaday in colaadda hoos loo dhigo taasoo la sheegay in laga arkay furimaha dagaalka ee dalka Afghanistan hase yeeshee dawladda dalka Afghanistan ayaa ku kala qaybsan wada hadallo laga galo Taliban madaxweyne Ashraf Ghani ayaa isagu shuruud ku xidhay wada hadallo toos ah oo dhexmara dawladda Afghanistan iyo ururka Taliban waxaana uu sheegay in ay horta xabad joojin saxiixan kolka kadibna ay yeeshaan wada hadallo kafal laakiin madaxa laanta fulinta ee dalka Abdallah ayaa isagu waxa uu sheegay in aysan jirin wax wada hadallada ku xiran hadii Afghanistan nabad loo rabana la joojo ayuu yiri hadallada xanafta leh iyo kuwa markaas qeexaya in wada hadallo lagu xiro shuruudo si kastaba noqotee waxa uu yiri Mr. Khaliilzaad oo asagu ah ergeyga Mareykanka u qaabilsan wada hadallada gaar ahaan madaxweynaha Trump wuxuu yiri waxaan hadda suganaa ayuu yiri jawaab cad oo ka imaanayso amaano ka sugano xagga Taliban taasoo ku saabsan in ay saxiixaan ayuu yiri heshiis cad oo ku saabsan in nabad waarta laga helo dalka hoosna loo dhigo qalalasaha iyo dhibaatada taasoo dan u noqon karta ama ay aqbali karaan buuri dalalka Afghanistan ama dadka reer Afghanistan iyo dawladda Mareykanka ayuu yiri waxa uu sheegay in ay iyagu mar walba hadii yihiin Mareykan ay doonayeen inay soo afgooyaan dagaalka 19 jirsaday ee dalkaasi ka soconaya kaasoo daba dheeraaday Taliban ayaa iyagu wali waxay ku doodayaan in Mareykanka uu saxiixo inuu gabi ahaanba dalkaasi uu iskaga baxayo halka Mareykanka uu doonayo in afar qodob oo waaweyn loo saxiixo sidoo kale Taliban ayaa diidan inay wax wada hadal la yeeshaan dawladda dalka Afghanistan oo ay ku tilmaameen inay tahay dawlad fadhiida ama dawladda badhilif u ah Mareykanka iyo xulufadiisa halka nagala socotaan waa wararkii warbixinada dhinaca diblomaasiyadda daawasha qiimaha leh warbixino waaweyn iyo wacaalo kala duwan baa inoo soo socda daawadayaal ee horta xanuunka ee koronada la yiraahdo ee sida weyn u afeeyay dalka Shiinaha ee asagu ah marka faafaha daran ee sida daran wax u gumaadaya ayaa la sheegay in ay dawladda dalka ama ismaamulka la yiraahdo Hong Kong andaho Thailand daawasha qiimaha leh waa Thailand goobta ku dhawaaqday ayaa waxa ay sheegtay Thailand in ay xanuunkaasi u heshay qof kamida ee ka daweysay isla markaana dawo u muuqatay inay suuragal noqon doonto laba dawo la isku qasay ay dhalisay haweeney Shiinaysa oo 71 jir ah kana tagtay magaalada Wuhan oo tagtay Thailand ayaa 48 saacadood ku bogsootay sida ay sheegayaan dhaqaatiir ku sugan Thailand ismaamulka Thailand kuwaas oo sheegay in ay daweeyeen kadib markii ay isku dareen laba dawo oo midna ay tahay ayay dawada hargabka shimbiraha ee fluga loo yaqaano iyo HIV-ga oo la isku qasay dhakhtarka arintaasi ku guuleysay Dr. Krenskit Atopaniwiki magaciisa ku sheegay isla markaana
ka la taliya waa wasaaradda caafimaadka ee Thailand ayaa waxa uu yiri waxa macquul noqon weydii kadib markii aanu aragnay qaraarka ka soo baxay ama natiijada ka soo baxday ayuu yiri shaybaar aan ku sameynay haweeney qabtay xanuunka coronavirus oo ka soo noqotay dalka Shiinaha taasoo ahayd mid aad u lidato tabcaana waxaanu isku qasnay ayuu laba dawo oo kala ah dawada ayuu yiri hargabka daran ee shimbiraha iyo dawada ayuu yiri loo yaqaano antiviraliska ee HIV-ga lagaga hortago inuu faafo AIDS isku bedelo ayuu yiri ayaanu siinay kadibna waxaanu isugu darnay ayagoo muditaana iyo iyadoo afka laga siiyay kadibna waxay noqotay ayuu anti cajaayib 12 saacadood kadib ayaa haweenadiis kor u soo fariisatay ama ay soo sar fariisatay iyadoo u muuqata mid ladan arrinta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dalkii ugu horeeyay uu ku dhawaaqay in qofkii ugu horeeyay ee ku dhinta banaanka Shiinaha uu noqday dalka Philippines oo 44 jir xanuunku soo ritay isla shalayba uu geeriyooday isla xalayba waxaana ay dawladda Philippines ay taas ku dhawaaqday sidoo kale dhimashada xanuunka ayaa karkaarka weydaaratay iyadoo dalkaasi Shiinuhu 400 oo qof ay cagacageenayso dadka dhintay dawladda dalka Shiinaha ayaa la sheegay inay sidoo kale diiday deeq uga timid dalka Mareykanka iyo waliba gacan ay Mareykanku doonayeen inay ka geystaan xanuunka la daalaa dhacayaan dalka Shiinaha ayaa la sheegay in xanuunku uu wali dadka tartar u soo ridayo iyadoo magaalada Wuhan xaalad ka bax ay noqotay wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in 400 ku dhawaad dad gaaraya ay u dhinteen xanuunka iyadoo la sheegay in 20,000 oo qofna ay cagaha la geliso dadka xanuunka la ildaran dawladda dalka Shiinaha waxay sheegtay ilaa hadeerto inaysan jirin dad ka bogsaday xaggeeda dawadan ayaa la sheegay in ay aad u caawin karto ayaa la yiri in laga tago hortaga xanuunka Shiinaha ayaa la sheegay in durba khubaro u diray Thailand wasiirka caafimaadka Thailand ayaa isaguna gaaray isbitaalka isla markaana booqday haweeneyda 72 jirka ee xanuunka ka soo raysanaysa iyadoo la sheegay in dawadan ay u baahan tahay haatan in la isku qaso kadibna dadka loo qaado wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxay sheegayaan in dalka Canada ay ku dhawaaqeen in ku dhawaad 300 oo qof oo Canadian oo ka xaniban dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ay soo dalbadeen codsi ah in la soo daadgureeyo 325 qof ayaanu helay oo codsanaya in aanu daadgureeyno haatan waxaan qabanqaabinaa diyaarado lagu soo daabulo isla markaana lagu xareeyo xero gaar ah dalka Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in markii ugu horeysay in gobolada xanuunku ka dilaacay ee xanuunku uu dadka u soo ritay in ay dadkooda u ogolaadeen inay u sheegaan arrintaas waxaan malaynaa dadka Soomaalida ay Mareykanka ku dhaqan aad bay idin anfici doontaa waxaana rajaynayaa in 5 gobol ee Mareykanka uu ka dhawaaqay in ay ka jiraan kiisaska xanuunka koronada aad u dayma lahaa doontaan sidoo kalena ay jiraan sidoo kale lambarka rasmiga ah ilaa hadeerta dadka xanuunka uu soo ritay waxa ugu horeeya gobolka inaga ka bilaabana sida ABC du ay tahay oo kale gobolka Arizona hal qof ayaa la sheegay inuu soo ritay gobolka Arizona koonfurta dalka Mareykanka sidoo kale gobolka California ee isaguna koonfurta dalkaasi 4 qof ayuu soo ritay gobolka Illinois 2 Massachusettsna waa hal gobolka Washington State ay magaalada ugu weyn ay tahay dabcan ay tahay Seattle Washington hal qof halka magaalada gobolka Massachusetts ee magaalada Boston ugu weyn tahay iyada hal qof u soo ritay waxaana ay waaxda dhinaca caafimaadka iyo ka warqabka sidoo kale iyo waaxda arrimaha gudaha dalka Mareykanka ay ku dhawaaqday in dadka ka soo noqonaya Shiinaha ee Mareykanka soo galaya loo ogol yahay kaliya in ay galaan ayaa la yiri ama ay soo maraan 4 garoon oo loo asteeyay in marka ay Shiinaha ka yimaadaanba si gaar ah lagu xabiso oo markaas lagu kartimeeyo magaalada garoonka ku yaala magaalada Dallas dalkaasi Mareykanka gobolka Texas Detroit garoonka Michigan Newark gobolkaasi la yiraahdo New Jersey iyo waxaa la yiri garoonka ku yaala magaalada caasimadda ee Washington DC ee Dallas la yiraahdo ayadoo la sheegay in ay dadku ay kaliya oo ka soo degi karaan 4 airport hadii aad ka soo noqotay dalka Shiinaha sidoo kale waxaa laga mamnuucay in ay dadka ka imaanaya Shiinaha ay tagaan garoomada JFK ee magaalada la yiraahdo New York Lax iyo Seattle Washington San Francisco Chicago Atlanta iyo Honolulu dhamaantood waa laga mamnuucay inay wax Shiina ka yimid ay tagaan waxaana loo cayimay kaliya inay 4 garoon ay horay u soo sheegnay marka hadaad qof Soomaaliya tahay oo Shiinaha ka imaanaya oo sita passport Mareykan waxa uu ka soo degi kartaa Texas oo Dallas Detroit oo Michigan Newark oo New Jersey iyo Dallas garoonka International Airport la yiraahdo magaalada Washington DC ayaad ka soo degi kartaa hadii kale tigirkaaga wax khasaare halka nagala saato wararka warbixinada adweysinteena ka bixin xanuunka koronadana dalka Pakistan ardaydiisi ayaa iyaguna war qoraal ay soo saareen waxay sheegeen inay meel ku xaniban yihiin
iyadoo dowladda dalka Shiine ay dhawaan sheegtay in ardada Pakistan ay loo dhaqmi doonto sida dadka reer Shiina ayaa war qoraal ay soo saareen ardada ayaa waxay sheegeen ayagoo gaariga kumanaan inay ku xandeeban yihiin ama ku xaniban yihiin ayay yiraahdeen 10kii cashay ugu dambeeyay deegaano iyo waliba iskuulo ka tirsan magaalada Wuhan ayadoo dadkii Shiinayska ay la dhiganayay dhamaantood laga wada saaray ama ay qaarkood ku noqdeen guryahoodii qaar kalena ay carreen waxa ay sheegeen in ay wali xaaladoodu ay tahay mid walaac leh isla markaana cabsi xoogan ay la soo diristay dadka dhalinyarada ah ee Soomaalida ah iyaguna ardayda ah ayaan ilaa hadeerto aysan jirin cid ku dhawaaqday in halka laga soo bixiyay Horfadhi Media waxa ay khadka telefoonka kula xidhiidhay safiirka Soomaaliya Mr. Cawaale ee ku sugan magaalada Beijing laakiin nooma suurtoobin sidoo kale waxaan u dirnay qoraal dhinaca markaasi fariin qoraal aan u dirnay nooma suurtoobin inuu nooga soo jawaabo inagoo weydiinay xaaladda ardada in wax ka iyo in kale waa sala socodona wixii ka soo kordhay daawasha qiimaha leh dadka Soomaalida ah waxaan u rajaynaynaa in ay ka badbaadiyo horta xanuunkan kow marka labaad inay taxadir sameeyaan gaar ahaan dadka soo noqonaya inay ayagu iskara tiimeeyaan oo meel walba magaalo kasta Soomaaliyeed aad ku noqonayso inaad iskara tiimeyso oo adigu aad runtii iskara tiimeyso aad iyo aad bay ugu baahannahay runtii oo aynan xanuunkaasi ay nafaafin aad baad u mahadsantihiin daawasha qiimaha leh sida noola socotaan mar walba dabcan Israa'iil waxay ku dhawaaqday in ay hawada cirka iyo badaba ay ka xidhay in ay wax ka soconaya ama ka imaanaya dalka Shiinaha ay soo gaaraan gudaha Israa'iil war qoraal ay soo saartay wasaaradda caafimaadka iyo witaan arrimaha gudaha oo iskaashanaya waxay sheegeen in arintaasi la sameeyay gorsii horeysana ra'iisul wasaaraha Yuhuda Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ka digay in dadka Israa'iil ka imaanaya Israa'iil u dhashay Israa'iil imaanaya ee ka imaanaya Shiinaha inay ayagu xakameeyaan oo ay meel gaar ah isku markaasi xakameeyaan ayadoo taasina ay noqotay markaasi mid aad daran gobolka Hubei waaxda caafimaadka war qoraal ay soo saartay waxa ay ku sheegtay iyaduna in xanuunku u muuqdo mid dadka aad ugu soo badanaya haatan waxa la sheegay in gobollo kale oo dalkaasi kamid ah laga baqayo in xanuunku ku faafo gobolka Xinjiang leeyahay oo dad gobollada ugu dadka badan ku jira dalka Shiinaha oo 62 milyan oo qof ku dhaqan yihiin ayaa la sheegay xanuunku inuu gaaray iyadoo la sheegay in 441 qof oo xanuunku soo ritay taas waxay ka dhigan tahay baa leeyahay in xanuunku uu si aad u daran u faafi karo hadii uu gobolka uu ka dad badan yahay uu ku faafo maadaama Shiinuhu ay trabeel yihiin oo dad aad u badan ay yihiin dawladda dalka Shiinaha ayaa wali la daala dhacaysa xanuunkaasi inay xakamayso iyadoo sidoo kale la diiday in ay dalka Mareykanka khubaro u soo diray ay aqbasho Mareykanka ayaa ku eedeeyay Shiinaha inaysan xanuunkan la tacaali karin dadka inay yimaadaanna aysan u ogolaan karin taasoo ay ku tilmaameen inay tahay mid aad iyo aad loola yaabo dalka Faransiisku waxa iyaguna ay sheegeen dadkii laga soo saaray ama dadka iyaga u dhashay dalkooda u dhashay dalka laga soo saaray in 20 qof oo kamid ah xanuunka laga helay taas waxay ka dhigan tahay khatarta dadka imaanaya ee xanuunka dalka laga soo samata bixinayo in aad looga taxadiro waxaynu ka hadlano waxaana dalal kale oo midowga Yurub ah oo iyaguna gargaar dalbaday oo ay kamid yihiin marka laga reebo dalka Faransiiska ay kamid yihiin dalalka la yiraahdo Belgium dalka la yiraahdo Denmark, Czech Republic, Slovakia iyo dhammaan dalal kale oo ay kamid yihiin dalalka Finland ay sheegeen in ay aad ula tacaalayaan dadka ka imaanaya Shiine ama gargaarka doonaya ayagoo sheegeen meel gaar ah inta lagu cashiimeeyo la baari doono lana hubi doono dadkaasi xanuunka ay markaasi sidaan halka dagala socdaan wararkii warbixinada Cabdulmasiid ee Soomaaliyana wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka waxa uu ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah ay Soomaaliya ka jirto wasiir Saciid Xuseen Ciid ayaa waxa uu sheegay in ay asagoo ka hadlayay fidiyada kula hadlayay magaalada Muqdisho xalay ayaa waxa uu sheegay in ay dalka Soomaaliya kaga dhawaaqayaan xaalad degdeg ah oo ku saabsan weerarka uu hayo cayaanka loo yaqaano ayaxa kaasoo si daran oo aafale markaasi uu soo weeraray beeraha iyo waliba dalagyada guud ee dalka Soomaaliya wasiirka waxa uu sheegay in arintan ay uga guleeyeen in laga hortago ayadoo hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan beeraha ee FAO la yiraahdo ay hore u sheegtay in ayaxu uu hayo uu yahay uu ku hayo dalalka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya khatartii ugu badneed muddo qarni ku dhow waxa ay FAO ka digteen xaaladdu ay tahay mid sii darsanaysa wasiir Ciid waxa uu sheegay in xaalad degdeg ah dalka dhan ay ku soo rogayaan isaga oo talaabooyin dheeraad ah oo ay qaadayaan sheegay gorsii horeysay Horfadhi Media uu kula hadlayay Mr. Ciid bishii Janaayo bilowgeedii ayaa waxa uu sheegay in ay sugayaan diyaarado
ay ka imaanaya dalalka qaarkood dariska ah kuwaasoo ay Soomaaliya dib ugu biirtay la dagaalanka ayaxa geeska Afrika isagoo waagaas sheegay in sababta diyaaraduhu u soo daaheen ay tahay ayuu ama ku sifeeyay in shidaalka ay diyaaradahaas isticmaalaan aan laga helinin gudaha Soomaaliya si kastaba ha noqotee waxaan ilaahay hadda tala garanaynin sababta shidaalka loo keeni waayay iyadoo aan rajaynayno in wasiirka arrintaasi wax ka weydiin doono dhawaan أنا إذا لا صحيح دون هذه الهيد ما أو وحي وجوابه وسيركو ومركز الناس ودره طاوع شقي محل هل كذا قال صوتهم وركي وربنا عبد المسيد قيمته دم وركوا على عبد المسيد